haysataana waa halkayda adduunka kaga taalo strategically waxaana taana dad badan fahamsanayna taa waxaa u leedahay aqoonsi ku raadaysan karto marka in Soomaaliya ciidan la siiyo imaaraadka miyaan ahayn Soomaaliland ka akhiiri oo dhan ay hal mar miiska soo wada saartay inaan aqoonsi ku helin Soomaaliland maadaama waxa ugu muhiimsanahay haysataa ay tahay dhulka istaraatiijiga inay dal kaliya siiso aqoonsina aanay ku diibsanayn miyaan ahayn Soomaaliland ka akhiiri miiska saartay waxay ka faa'iido weyn inaan jirin waxaan jecelahay su'aalaha inaan sacab lagu faa'iidaysto waqti hore caalamka بسم الله الرحمن الرحيم ما سيئ طريقة قولين إن سلق مريتريا إنه دولة إمارات كسينا أنا ما أمين سني إنه دقدق أحيد وشوكا كينيو إنه بدك هراء قدينا إنه هيد ما أمين سني قول سنو سومالي لان صاحبتي نمو كل سوني بوبانتاي عاد aynu wada guulayno saaxiibadeen u baahanay mantiqada waxa ka jira dagaal xasaasiya oo saameyn weyn ku leh wadamada gacanka carbeed Saudi Arabia Imaaraat saameyn ku leh haddii dhifta saaxiibka hadii dhibta la qaybsan weydo de maalin dheefi jirto qiimaha aad u yeelanaysaa calaamad su'aal kana waxaan u arkaynay aqoonsigu waa ka iman doona waa wax dhabada ku soo jira waana wax u baahan kalsoonideeda ku dheeda nimanka haddaynu isbarano gacanta isgelinay inaynu beero marka anagu tallaabadii aqoonsigu ku imanayay baan sadhigo arkay su-aashayda labaad waxay noqonaysaa intaan dadweynaha u gudin UN monitoring groupka qolada eegta Soomaaliya iyo Eritrea hadda waa la kala diray xagga hubka ka eegi jirtay warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland lacag 15 kun qof walba la siiyay markii heshiiska ansixinayay isjiid farabadan oo ka dhacay markii golaha loo kulmay gaar ahaan xildhibaanadii ka soo horjeeday TV wax laga daabtay iyadoo khasab meesha lagaga saarayo baarlamaanku wax dooda ka muuqday marka baanay cadayn oo ahayn habka baarlamaanka ka dhacay in hanaanka loo maray uu ahaa hanaan aad u qaldan oo ka soo horjeeda nidaamka Soomaaliland warbixinta ay kooxdaasi qortay وحبا اعتمادي معي وطن كان إننا عليه إننا معمولنا بس الحديث وناقي سينا وقضب كلامات حقوق قلب معها وحاي هيان وكتريتها إنه نقول إحنا نسكر إن يدعيها يوحى تراد كيني وبسيدين إنه قرية بهيانه قولوا له ماشي لما يجوين ما ليش أنا مرخاتي كمان هين ماشي بحد ما نقدر العقد اللي يقولين ماركين بلا waxay aad ku tahay qarannimada Soomaaliland gurihii sharci labadii gole ummadan u talinayay in ay kooxo tiraado lacag baa la siiyay xogaa lahay wahada laanay u miildaayeen oo mudanay xalka bixiya waxa weeye ma waxba la wanaajinay mise waxba aan xumaynay monitoring groupka maxay uga warrami waayeen maalin walba dekada dunida laga bixiya khaasatan geeska Afrika laga bixiya meel baarlamaan la geeyay ma jiro mid laba aqal la geeyay ma jiro waxayna wadanka kaliya ee heshiiskii maalgelinta dekada berbera baarlamaankii ee saldhigii labadii aqal ee Soomaaliland isugu yeedhay ma fahamsantii labada aqal ee Soomaaliland marka la isugu yeedho qiimaha ay fadhido gebigooda waxay kulmaan xaalado kooban ay kulmaan ma kulmi karaan والله أقل أو السبارة نسا والشرعية السعودية waxay kulmaan marka khudbad sanadeed ka madaxweynuhu oo labada aqal jeedinayo way kulmaan xaalad adag oo qaranka ku soo kordhay oo colaad ama musiibana way ka kulmi karaan xataa muddo kordhimaha kama kulmaan qadiyada weyneen aan u sameeyno ayuu labada aqal isu keen maankooda iyo wacay iyo caar qaawan in la yiraahdo 144 labada gole Soomaaliland ka tirsan baa lacag ku codeeyay aqligeena la caaya balde أبغى هذه أبغى سنتها واحد يدي سوق بين دونا إذنك واحد سجعلها يقولي إن عصبان يدي شيء روليسكا CBA نمبر 1 ومركب كوباد قف كستفر صد ما وسين كرها إنه هدو سوق عنده وتعجبه وسين دونا
waxa shardiya laba shay waa inaad soo koobtaa 2 minute baad su'aashaada kusoo koobaysaa su'aal iyo comment isma raacinaysid haddaad comment diibanaysid waa keligeed oo 3 minute haddaad su'aal diibaysanin oo 2 minute keliya araar male salaan male hambalyo male toos baad su'aasha u gelaysaa taas waa mid waxay tahay dheer su'aasha waxaan jecelahay inay mawduuca khusayso waxaan jecelahay inaanay wax personal taaga aanay noqonin critical way noqon kartaa saad doontaa critical noqon kartaa laakiin waxa ay aflagaada noqonaya ma noqonayso kolka qofkii microphone-ka hayay ninkan khamiiska sita iyo muraayada ugu horreeyay gacanta taagan adiga microphone-kii waa doonaya sida ugu dhaqsaha badan waa igu dhaqsada dee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوكوي وحجعله وزيرك هنا لما سؤالات ويديو سؤال شيء ذكوات وهل سؤال بدو يديني ساقحوا معي وي سؤال ما كان يقول ياراك على دورنا يا وحي نقصه نقطي كيس أورنا يا سليق بربرة إمارات كلاجبك كراين مشاريع ولا بدل الشيء مرة قارن كل اللي هي إن كان كراء ولا قاطي عندنا وزير بينه ما دام الحوار لها ونوشة عاوة سليق إمارات كمحين كجبدلني سليق هبربرة هاي الإمارات كجبدلني هدو كراية هاي أو إن كان كوينه قدر كقدرية هاي سجلت جيس ولا جرانا يا قيمة وجوه أوية واحد صغير يدو كبدلني ما دوري واحد شعلها هنا إديش يا محمود حاشي وينوقنا هاي الصومالي الآن وطن الاعتراف سنة هاي منيه حطينا اعتراف هاي السنة سيدابين ويشيسي عالمي يوقع لكرينا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شيء ده كوباد هذا خصوصا كوبا هشيس كنا بدأ دلالك إثيوبيا لتريا ميان ماشي كسر المهمة دي أي تكذب بالبراءة حيد إثيوبيا ويدينا يا محمد حاشي إن قال الله يرحمه إن صدق ملتري يعني بحيننا بس ما لا ناي بحصي إن محينو هدي أي دبات كتير عدو أو مثلا إن صور رو لصدق ملتري نبت كلمة تعلمها لقى بحيه هدي شعب كانوا حجاران محا إنه غير ميليا لا إلا إنه هيا أما إنه هاي سنة كنا وش شيء سنة أو هاي سنة دوت markaan u guddo dogasho jawaabta su'aalaha saldhigga aynu siinay dalka isu taga imaaraadka carabta waxaa heshiis buu salka ku hayaa nuxurkii heshiiskaas waxaanu horgeynay labada aqal ee jamhuuriyadda somalilan qodobadaas ayay ku cad yihiin waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxa aynu xaq u leeyihiin kadibna looyaraa markaa dib u qaado oo kii dhibi weyla saasuu ahaa markaa waafajiya qaabkii heshiisyada iyo waxyaalihii lagu dabriyo waxaasoo dhan laakiin nuxurkii halkaasuu ku caddaa waxaynu siinay dalka imaaraadka carabta same waxay innagana inoogu bedelayaan mashaariic horumarineed oo saldhigeennii kiradiisii ah mashaariicda saldhigeennii baa laynoogu bedelay kiradiisii kaash maaha laakiin waa mashaariic exactly si cad bay ugu caddaa waddada berbera corridor baa ka mid a waxaa ka mid a muxuu ahaa madaar civilian airport ah oo muxuu ahay magaalada berbera laga dhisayo waxaa ka mid a mashaariic kale iyo dano kale oo fara badan su-aasha intaasaan jawaabteeda kaga baxaya talabaadna aan raaciyee la xidhiidha saldhigeeda haddii laa qadar allaahu dhibaato ay inagu timaado ilaan dhinac baynu marro dhex ma nihine maxaynu helaynaa waxa weeye doorta balaayo lama saadsado waryaal dee bala lama saadsado dunida dad badan baa dalal badan baa saldhigiyale oo inala itaala qaar inaga minja yar qaar inaga dhul yar hurdahayna yasina eritrea jabuuti intaba saldhigyaa ku yaalla waxaa lagaga duulaa innaga weli keenu mana dhammaan lagaga duulana haddadaasaa yima lagaga duula midna musiibo ma qabsan xoutiyiinta iyo dadka halkan ka dagaalamayaana dee wax cirka ka soo dhaca ma ahade
laakiin markaynu qaadanayno go-aankan dibay sheegi maayo we have to be risk takers dheef iyo dheefna waxaynu wadaagnaa waddamada aynu xulufadanahay difaaceena waxa weeye qodobaday ku xusan tahay inaynu difaac mushtariga xitaa wada leenahay dicool ka badan inugu yimaado waa dow marka iyadana waxaan leeyahay warniyada aan khayr u sheegne xagga xunuun iyo inaan u wax goodoonsi arrinta kale raalli ahaada kaadiya arrinta kale Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodu miyaanu waxay noo dhimayn dekadii aynu yabiyabayna iminka abyina cusbaynaanay meesha muhiimadeedii ka saarayn waxaan leeyahay ma qabaan ugu aragtida waxaanan isleeyahay inta arrintaa u dhuun darooshay ee mas-uuliyiinta qarankuna ay ka mid yihiinna way ugu raacsan yihiin fikirka waayo war inagu maanta boqolkiiba labada Ethiopia ka kala dekadeena waxaa ka soo degaa boqolkiiba labada maanta Ethiopia kala Ethiopia waa dal xoog weyn populationkeedu korayo 2050 la saadaalinayo tiraday gaadhayaan inay aad iyo aad u badnaanayso dhaqaalahoodu kobcayo oo 2050 la filayo wadamada dunida ugu dhaqaalaha weyn inay soo gasho T20 inay ku soo qiirto marka baahidooda iyo farahooda kordhaba waxay u baahanayaan meel ay wax ka dhoofiyaan meel ay wax ka soo dejiyaan dekadaha faraha badan ee geeska Afrika Djibouti عصب وإمك شقيسي بربرة سبورت السودان محوها إيه منباسة مقدشو كسمانيها الديلس ورويس عمرة يعني إسرقادي ما يعني ميلا دكامة بدن ميلا نقول ليس عمرة بلا يبو كما كوي بالدكان نسو يقرأ على هذا قولي مرة على يقول نسو سوماليين باي شيكي يبريو دلو يبو كويس الدكان بوكو كويس ما نبال سومال كاسو يقول هل كان مركز سود دقيقي لمن عربيت باتوكا بكود هستي يشياء وبقى يروح لها ويكون علاد انت واروح المحام وكاني سوق يا ربي يكون عليني تقال كيف افرا الشد ما ولا ما سوق وين ويري هذا ويس كسبرنا ورياه هو رخاي ودون اكسنت هي سوق موضوع بتاع نمادين هل كان دك كوا صور دورنا يمكن تكاوده بتاعهم ارتدا ادونك بشقيا وقتها ما ها كومبيتيشن قرا تريد وين تستحق ولا لكن ما ها كومبيتيشن نيجاتيف بل هو كومبلمنتري وحلا افك قلال ويسكابيا ويسعمريا بهذا بقول كيما 60 كيلو ينو بلان قادي اما هيملada Ethiopia ahayd ay laga yaro 20 noqono meel khasraana maxay maanta hayna maanta waxayna cidlay tobanay duwan faa'iido هشيس استوض بيسا سؤال شيء هذا هشيس عالمي مجيلي كرا ومحايلو دينيين يقولون طلبين هاي مدح بنان إس أقوسا دولدو تقانا حقيقة جدا ولا قوس عالمي يدي ما هيسلون لكن أدون كوحو إروية قانا إلى إنه هاي دلتشرا نظام له أمان كيس السوقية حدود له ولبا الليغال كيس أفريقيا يونيون كوحي أوجيه ربوك كي أي سمايين حلقي مدحونا داهي ديالة تلده هي فاك ميشن باي صدري فاك ميشن وحي حقيقيين إن سمالنا ليغال كيس أي لهذا وحالكا ولي هالكي ويالي بان لغا صورة قاتل تصوتي شرعي لكن دين عسياسة وحالينو أركا دل كيس مامولا وهذا إمارات نعسية معها هشيس كمان كان قال هداني حقيقة أوجي شكلها الشدال كبارة الهشيسين يقولون ولا شيء هداني حقيقة أوجي وحين مرينا سقال يلا بعتصل نضوط بين بير قرن كبير كقوي بينه صدق سنة قرن كسومالي بين كشري صدق كلنا ينبلع بنانا وما تشتري سقال يكون تصنعوا بينه تدري الريالة تيجي وقتها مركوي يجيلي كرا تريدنا وهذا الله يقول دبلوماسية يونان تشارترسكي وحاسوبا لسكي عليها قرن كيني وحلو أركضل لسان وشراء وكفي عوض مفر بدن وما تعقون سياسة وما تصير. أدوما سنت هزيد. أنا سؤال هذا تحرى عيا ساس شيء سومالي لاند وحيكون دوتي إن أنا كراينين
saldhigga ay wax weydaarsatay laakiin tusaale ahaan Djibouti oo inala darisaa waxay Mareykanka kaga kireysay saldhiggeeda 58 milyan sanadkii Faransiiska waxay kaga kireysay 30 milyan oo euro Japan waxay kaga kireysay 3.5 milyan waxa soo sheegay Ismaaciil Cumar Geele jariirada ka soo baxda Faransiiska leedahay Afrika Shiinaha oo kamid ah dalagyada saldhigga ka kireysay waddo tareen buu dhisay oo ku xidha Ethiopia marka Somaliland maadaama ay gobolkii sida waxna uga kireen lacagna ka qaadanay wadooyin loo dhisay maxaa meeqaamkii Somaliland hoos u dhigay oo keenay inay taado adigu waddo yar oo noogu dhiso waxba lacag aan siinay meeynaan gorgortankeeni liidanin marka loo eego marketka wixii ka socday guriga guumaadsanyahay ortodee heshiisyada dowladuhu galaan waxa uu meelaha ka baxa waa liigay badankoodu waru sida waxaynu banaanka u yaalaan dunida banaanka uma yaalaan oo muxuu ahaayay sidaa cid waliba u mooga qodobka hoostan ka xariiqay qodobka labaad waxa weeye dunidu ama saldhig military ha noqoto ama deked aad cid cad guulaysaan ha noqoto ama wax kale ha noqotee waxa weeye labadaba halkay iska heshaa duruufo kala duwan baa heshiisyada saameyna ku leh xaaladda waddankaasi saameyn buu ku leeyahay baahida waddanka kale haysa saameyn bay ku leedahay baahida waddanka wax bixinaya uu haysatee saameyn bay ku leedahay waxyaalo fara badan baa saameyn ku leh dinagu beenis ma sheegayno waa kan iminka hadda la weydiinayo heshiisye ma geli karnaa innagii baaba ka shaksan inuu heshiis geli karno waxyaalahaas soo dhami waa meelayna baksay anigu waxaan leeyahay heshiiskii ugu horreeyey ugu mucta weynaa ee amni aynu gallay buu ahaa wax weyn baynu macaashnay baahida aad qabto wataan ku maamaahayay hal danaad leedahay baa 12 danood nin loo siiyaa baahidaaday markaa ku xidhan tahay haddaad baahida dantaasi xoog ku hayso oo hore u weydo inaad heshaa waxaad ku qasbantay inaad bixiso dekeda corridor wadada corridorka berbereynu madaarkaa siisanay 25 sannadood 25 sannadood baa la wado maqbarad la wado loo baahan iyo cid laga caawisiyo cidina deemisay weyn deena waxayna ku sarifano oo aynu horumar gaadna talaabo ku dhaclabay ahayd inagu Djibouti oo markaa wadamo badan geeska ay kulaalayeen oo saldhigyada waxa laga yaabaa inaynaan bidalka badan la helin taalifteedu saameyn bay leedahay aad baad mahadsantahay weynaha ayaan su'aasha u sheegay kolka dhinacyadoo dhan waa soo noqonaya dhinaciina waan idin arkaa xaajigan safka hore soo fadhiyaan marka hore ka yara booday waxaad leedahay comment ama su'aal wali idinku celinaya oo 2 minute kaliya ismaan raacayso waa one question هلا أيق عن فضيلة ها وصار أورينا يا أنجو وعن وسير كويدين يا وسير مدة أد وسير كاهي واحد إذا عدى كشك تور باهين الصومالي لأن إيكم متجريين إن أعتري دجال كخلاف كعرب تكسرون يدين بوصلك كوهيا أنا كنا واحد نهي وطن سنة أو دجال كعيب بان هاي يضو أنا يشيلين واحد يرجلوا واحد الصومالي لأن كيمد إسلام مركانا واحد كتير جوابي هل في جدين عيكله oo tilmaamay inay Hargeysa iyo Berbera buur u bedeli doonaan marka ay taasoo kale ay dhacdo miyaa mas'uuliyadda consequences ka yimid ee ka dhashay hadalkii aad ugu bixisay warbixintiisa mas'uuliyaddeed yaa qaadanay waa ka baxay waa maasantahay military base markaad bixinaysay waxa tiri waxaan ku bedelanay dano oo dan baan u aragnay inaanu bixino sidoo kale waxaad sheegtay isla dantaasi inaad dunida kula sheer garayseen inaad waxaaga la sheer garayso taasi hadda soo ururiyo su'aasheedu waxay noqonaysaa wasiirkeena finance-ka waqtigiina ahaa wasiirka khaarijiga wadanka wuxuu habeen dhaweyd isla masraxan ka sheegay inuu dekadu tahay bilaash military base yahay bilaash dekadii inay iska daa wax kale 5 milyan la sii 2 sanadood la sii qadintay marka miyaan la oran karin bilaash baynu u bixinay iyo dana shakhsi bay ku baxday waxaan see wasiir ku darayaa billahi calaykum waxaad ogaataa dadka halkan fadhiya wadada qoonyahana oo dareensan siyaasadaha caalamku sida u socdaan oo wax bartay marka haliidin oo hoos ha u dhigin way
su-aashaydu waxa weeyaan sida ku qoran nuxurkii heshiiska ee laga ansixiyey in golaha wakiilada 2016 waxa ku qornaa lacago badan oo aynu ka helayno dekada berbera oo kiraa isugu jira faa'iidada sanadkii isugu jirta iyo maxay ahayd khidmado kale wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay dawladdii hore inay sii qaadatay kharashaadkii aynu ka helaynay dekada sidoo kalena kuma jirin miisaaniyadii 17 haddii ay dawladdii hore ay sii qaadatay xisaab xidhka uu hanti dhowraha guud keenay bishii hore golaha wakiilada isagana kuma xusna lacagtaas dekadu meelna inay kagama xusna inay soo gashay qasnada guud ee qaranka lacagta ayaa sii qaatay oo sumadeeda lagu og yahay sidoo kale heshiisku 3 sano maraya imika marka loo eego 3 sano waa 10% muddadii ay haysanayeen dekada qolada DP World marka 10% wali wax lacaga oo sumad lacageed oo dakhliyo oo mujtamaca reer Soomaaliland ay arkayaan oo ka soo galay haday noqoto kiro haday noqoto saamigii faa'iidada 5% ah iyo 10% qoorweynta laga gooynayay midna ma hayno badana wasiir balacagahaas noo sheeg xaqay mareen wasiirkina wuxuu sheegay maaliyaduna sii qaadateen assalaamu calaykum waxaan dhaanigahan warsamo jaama wasiirkii hore maxamed xaashi waxaan weydiinayaa saldhigga military waxay noo sheegeen in dayarta Soomaaliland iyo dhalinyarada Soomaaliland aqoonyahanka looga maxay haytooyeen waxtar loogu qaban karayo shaqaabuur tiina ma aragno nooma muuqato xukuumaddii hore ayaa heshiiska meesha kaga kacaysay si xukuumadda bixi baa handaraabtay intaasan kaga baxaya halkay magacaygu waa saaraa su-aashu baan gelayaa iminka intaa khudbadda jeedinaysa wasiir waxaad tiri dana siyaasadeed baa base militariga loo bixiyey etoobiyana shaki bay gelisay waa maxay danta ugu weyn ee Soomaaliland ku bedelatay ilaa iyo hadda baasaboorka ay tiri imaaraadku waa lagu soconaya laguma socdin waana ku xasbanay su-aasha labaad inaan raaciyo khudbadaadii hore golaha wakiilada aad ka jeedisay waxaad sheegtay in hal sano gudahood heshiiska haddii uu fuli waayo uu burayo welina ilaa hadda heshiiska DP World muu burin maxaa isbedelay haddaan ka jawaabo hadalkaygii ku saabsanaa February bishii labaad sanadkii 2016 wiil wariyaa suxufi Soomaaliland ii weydiiyey dagaalka Yaman ka socda aragtidii hadalka aan idhi ma ahayn aragti maskaxdayda iyo aragtida shakhsiga ma ahayn waxaan cadaynayaa oo xusaya inay ahayd mowqif siyaasadeed oo xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaayo ay qaadatay waxa uu ahaa bishii January madaxweynuhu wuxuu khudbad ka horjeediyay labada aqal khudbad sanadeedkii mowqifkaas buu kaga warramay uu leeyahay waxaanu la jaal iyo jeerinahay wadamada khaliijka waxaanay salka ku haysay iskama ahayn arrin caadifada laakiin aragti siyaasadeed bay salka ku haysay waxaan jecelahay in aqoonyahanka Soomaaliland aad dimensionska u fahmo bini aadamku wuu qaldami karaa waxaanu nahay bini aadam waa qaldami karaa hase yeeshee aragtida anigu waxaan aaminsanahay inuu sax ku ahay Iran iyo wadamadan gacanka khaliijka xafiiltan xoog la kaga dhaxeeya bariga dhexe Iran waxaanu salka ku haya ideolojiyada sunniga iyo shiicada dagaalkaasi wuxuu ku hayaa yaa mantiqada bariga dhexe awoodeeda yeelanayo maamulaya ma dowladaha sunniga mise dowladaha shiicada iyo sunniguna wartee waa ideoliyad jira waa aragti jira waa madaahib jira marka taa laga yimaado waddanka Iran xoog buu qas uga wadaa meelo badan Lubnaan baa ka mid waxaa ka mid ah waddanka la Suuriya oo maanta burburay waxaa ka mid ah Ciraaq oo maanta adabtiin xaaladiina waxaa ka mid ah Bahrain waxaa ka mid ah Yemen oo fooday loo saaran warxasi waa diraac waa siraac xoog loo jira ideolojiyada laga socdo annagu ma aanu arkin inaan dhex ka noqono faraa laabano Iran adeej dameeraynu isma geeyaan dameeraynu Iran raacnaa raacnadee waddamadaynu danaa leenahay ee xoogsatadeenu joogto ee ganacsigeenu ka yimaado ee adhigeenu u dhoofo waa arrintan ka hadlayay
anigu waxaan aaminsanahay dad badanna ila qaba aragtidii xukuumaddii aan ka mid ahaa na ay ahayd war siyaasadda ma aha aragti saxa inaynu dhex noqoneen waa inaynu meel raacnaa oo meesha danteennu ku jirto ama aynu wax ka xabkaysan karno aynu raacnaa taa intaasna kaga baxaya qodobka labaad waxa weeye saldhigga magaalada berbera aynu imaaraad ka siinay waxaan moodayay inaan ka jawaabay waanay ku xusan tahay heshiiskii nuxurkii aanu labada aqal geynay heshiiskaa wax lacagi kuma qoran laakiin inaynu ka kiraynay baa qodob si cad ugu qeexan waxaa kale oo ku qeexan inaynu kiradaasi aynu ku qaadayno mashaariic baa ku qoran sida qodob labaad de waa very clear waxay la tahay meel wax isburinaya laga dayo dee anigu ma arko wasiirka maaliyaddu doctor sacad cali shire anigu been kuma aqaano waa nin wanaagsan dee wuxuu uu male ka hadlaya waa wasiirkii maaliyadda oo dee aniga lacag malaa inay lacag soo gelin buu de ka warramay dee waa taas halka laakiin heshiisku heshiis aniga iyo sacad iyo wasiiradayadii kale iyo bahdayadii oo dhan magan looga yahay maaha de waa kaa haysaane akhriya kaa intaasaan oran lahaa annagana dee waxba inaanu isburinayno hanaga dhex raadinina taana waxaan oran lahaa intaasaan kaga bixila su-aasha kale ee ahayd lacagihii dekeda berbere ka soo baxay d b wel kala duwanaa ma idinkaas sii qadintay waxaan leeyahay xukuumaddii axmed siilaayo waxaan caddaynaya wax kirooyinkii dekedda ah oo waktigeedii aan la gaadhin waanu sii qadimanay inaani jirin oo caddaynaya wuxuuhi madan la markhaati dhigo masaajidna magax dhigo waa gole waa run xisaab xidhka 17 kuma jirto kii 16 kuma jirto lacagaanu ka diban dee waanay jirin hanagu soo caddeeyeen dee ciddale lacag baa qaadateen ciddale waxbay ku sii furalaabeen odayaashii dee anagu caddeeyeen laysuma daraadeen anigu kama warrami karo anigu wasiir maanta ma yihi xisbiga kulmiyaan ka mid ah odayaashiisaan ka mid laakiin wasiir ma yihi dowladdu inay maanta qaaday iyo in kale inay qadimatay maanta iyo inaanay qadiman dee taanu kama jawaabi karo taa waxaa ka jawaabaya dee wasiirka maaliyadda iyo ciddii kale xogayaal baa ka jawaabaya taana dee waa nin walaba hadalkaaga subad ku dhiga baa leeyi intaasaan taana kaga baxaya arrinta ah su-aashii gabadhuna i weydiisay ahayd waxba ma inaan faa'iidin saldhiggeennina imaaraad baad siiseen dekedeennina imaaraad baad siiseen shaqana ma abuurmin ya waxaan leeyahay dee iminkaaba loo qalab qaatay daraasad baa lagu jiray daraasad baa la diyaarinayay waddada daraasad baa waddada la iskama bilaabo daraasad baa la bilaabay oo la samaynayay dekedana daraasad baa la samaynayay heshiiska laftiisaa raago intii looyaradu gacanta ku hayeen waan ka jawaabi doonaa waa su-aasha soo socotee marka mudday qaadatay war yaynaan degdegine iyo inaanan niyad xumaanayna dee hadday inoo bilaabmatee haddaynu xeydhada gacanta gelinaynaa waddadiina waa taa la wado dekediina dee waa taa la wado shaqooyinkii ugu horreeya waa bilaabmeen intaasoo gaadhaa maanta ka shaqaynaya labadaa mashruuc intaas oo baabuuro bilcamara intaasoo xoogsataa baa ka shaqaynaysa daba shaqo abuur waxaan leeyahay anugu dadka falka maran u wada dari maayo waynu hodmaynaa waxaan leeyahay warow nimcadii iyo cagtaynu dhabbada saarnay kunka tallaabana tallaabay ka bilaabna aan sabirno baan leeyahay madaxweyne muusena ma handaraabin annaguna maanu sii khiyaabinoo waxba maanu sii dibindaabiyeyn annanagu maanu dibindaabiyeyn muusena ma handaraabin taana intaasaan leeyahay naanaysaha laftoodu war waxaynu u baahan nahay madaxda qaranka in naanayso fiican oo dhiirigeliyaa oo xamaasad geliyo loo bixiyee wardaynu wax walba tashaawumiin noqono dhinaca xunun handaraad iyo quful iyo belo iyo de war waxaasi hadda innagana inooma fiicna madaxweynaha magaca wanaagsan ugu yeedho markaasaynu barwaaqoobaynaa iyo wasiiradaba taana intaasaan oga
arrintaa su-aashii ninkii aqoon-yahanka ay weydiye ahayd hadalkee baarlamaanka ka jeedisay ahaa hal sano gudaheed haddii dhis waayo dafiri maayo hadalkaa inaan idhi nin hadalkuu yidhi diiday waxa weeye waa mid subxaan allah hase yeeshee memorandum of understandingkii aanu gallay waddanka imaaraadka shirkadda d b w yaanu golaha horgeyna waa sidaa ay ku qoray heshiiska marka uu qabyo tirmo hal sana daraasada samaynaya kadibna dekadaa la bilaabay exactly saas waa ilaa iyo haddana concession agreementkeenu sidaasuu qoray sidaasuu qoraya lama bedel haddaba maxaa haddaad bilaha shamsiyada iyo qamaryada tiriso hadda 6 maalmood baa udhaxaysa 6 maalmood baa hadda udhaxaysa sanadka shamsiyada iyo qamaryada haddaad tiriso heshiiskii maalintii aan hadlayeen golaha hor joogay dee kamuu bilaabmay golaheenu nuxurkii buu ansixiyey wuxuu ka bilaabmayay concession agreementka dee markii la saxeexay ayuu ka bilaabmayay muddaanu gacanta lagu hayo looyaro culculus bayna ka shaqaynaya waxaa kaloo ku soo kordhay daraasadiina way mug dheeraatay doorashana waynu galay waxaa goleeda ku soo kordhay etoobiya oo aan ku jirinoo saami iyaday cusub yeelatay oo third party baa soo galay partner oo iyaduna u baahatay in aan marka hore qorshaa ku jirin marka arrimahaas oo baa jiray muddadaasina haddaynu ka hadlayna waa 2 sano waar waxaan leeyahay war maanta hadda waa taa la bilaabay babeen baynu sheegayna waa taa maanta dhoobada iyo dhagaxii iyo ciidiiba dee ay sasaareen waa maadsanta ina cabbi aan cidiba ka jirin waaye ina ka safka labaad jiray muraayadana sidaha ina ka istaagay sidii sharcigeenu ahaana wayna dadajisaan mudane wasiir maxamuud xaashi cabdi haddii aan hadalkayga aan gudagalo horta magacaygu waa fatxi faysal jaamac runtii su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye iminka waxaad ka tidhi madasha ma haysanno aqoonsi caalamiya se mudane wasiir waxaa la sheegaa ama qolada koonfurta ay sheegtay in dekadda magaalada berbera iyo saldhigaba laga saxeexay madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud oo isaga laftigiisa qadar lacageed intaana meesha ka tegin la sii siiyey xukuumaddan madaxweyne farmaajona ay ku hungowday madasha iyada kolley waa joogtay markhaatina waad ka ahayd xoogaan la waatay bulshada somalilan cidda heshiiska saxeexday ee lahayd go-aanka kama dambaysta bulshada u caddee somalilan aad iyo aad baan kuu salaamaya maxamuud xaashi cabdi wasiirkii hore wasiir su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay dowladda etoobiya waxaad sheegtay inaad ku maslaxdeen in bayskaa la bixiya hase ahaatee warar xogaale waxay sheegayaan in etoobiya ay halkaasi ciidamadeeda ku tababaranayaan bayska imaaraadka la siiyey halkaana ciidamada etoobiya iyo maraakiibtooda ay iman doonaan arrimahaasi waxaa ka jira ayaan doonaynaa inaad bulshada u cadday somalilan aad iyo aad baan kuu salaamaya maxamuud xaashi cabdi wasiirkii hore wasiir su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay dowladda etoobiya waxaad sheegtay inaad ku maslaxdeen in bayskaa la bixiya hase ahaatee warar xogaale waxay sheegayaan in etoobiya ay halkaasi ciidamadeeda ku tababaranayaan bayska imaaraadka la siiyey halkaana ciidamada etoobiya iyo maraakiibtooda ay iman doonaan arrimahaasi waxaa ka jira ayaan doonaynaa inaad bulshada u cadday labadii dowladood kala dambeeyey muuse iyo siinaayo heshiiskan d b wall wasiir iyo madaxweyneyaalba way ka hadleen haddana si kala duwan ayuu mid kastaaba madal kala duwan ugu hadlay ma idinkaan isu warhaynin oo midkiinba mar ay saxaafaddu qabato ama warar jeedinaya si gaara uga hadlaya mise heshiiskan baan waxba ka jirin oo dadkan somalilan baa doonaysa inay ku guuridaan oo aad been ugu sheegtaan taasaan doonaya ina caddayso su-aashaan ku weydiinaya shacabka inta badan waxaa la weydiinayaa su-aalaha local bebraya iyo saldhiga la weydiinaya su-aashaan ku weydiiyey waxaan doonayaa arrimaha dibadda marka laga hadlo diblomaasiyadda masar khilaaf baa soo galay somalilan khilaafku maxaa keena sababta waa maxay su-aasha iyo intaas arrimaha dibadda marka laga hadlo masar maxaa khilaaf soo dhex galay somalilan oo diblomaasiyaddii aad bay xumaantay intaas su-aashii bay su-aalaadu muhiima baa weydiinaya wasiirkii hore mudane wasiir sideedkii bishii 12 ee sanadkii 2017 dowladda federaalka Soomaaliya waxay si toos ah ula wareegtay hawadii Soomaaliya iyo Somaliland ka dhaxaysay isla 18 December sanadkii hore maareeyaha hay'adda dowladda Somaliland mudane Rodal wuxuu sheegay markii ay Soomaaliya hawada la wareegaysay
inaanay kala tashan haba yaraatee somalilan islamarkaana iyagu diidan yihiin soddonkii sano ugu dambeysay hawada soomaaliya burburkii hay-adda baa maamuleysay kawa la yidhaahdo oo fadhigaygu nairobi yahay adigu markaad wasiirka ahayd duulista hawada 2015 wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ka dhacay ankara 6 qodob ee lagu heshiiyey hordhaca ahaa waxa kow ka ahaa in hawada soomaaliya iyo somalilan bayskeegu marka hore noqdo in hargeysa laga maamulo maxay u dhacday in imika laga maamulo soomaaliya dowladda somalilan ay uga hadli weyday su-aasha labaad aan ku weydiiyey su-aashii ku saabsaneyd heshiiska saldhigga berbera iyo heshiiskii maalgashiga dekeda ballaadhinta dekeda berbera yaa saxeexay waa su-aal jawaabteedoo kooban heshiiska labadaa heshiisba waxaa saxeexday dowladda jamhuuriyadda somalilan ma jiro heshiisyadeenna waxay soomaaliya ka saxeexday waxaa caddaynayaa oo soomaaliyada waa kuwa qarqarka heshiisyadeenna haysta way ka hadleen madaxdaa hore oo dhammi iyagoo le maanu saxiixinoo maanu ogin dee markhaatiga kaleynu doondoonaynaa waa maxay maxaa annaga naga qorqodaysaan wuxuu hi alfadlu bimaa shahida alacdaaw waxaa markhaati kugu filan cadowgaagu wuxuu kaaga marakaco taasaan iyada ayaan kaga baxaya ninkii dhallinyarada halkaa iga weydiiyey ciidamada etoobiya saldhigga berbera ma isticmaali karayaan haddii imaaraadka iminka ay saaxiib noqdeen jawaabteedu waa maya waxaa keliya oo isticmaali karaa waddanka imaaraadka carabta oo keliya xataa ma isticmaali karaan heshiiskeennu si cad ugu qeexaya waddamada ay xulufada yihiin xataa ma isticmaali karaan waayo wadahadal dheeraada bay keenaysaa haddii imaaraadku damco inuu sacuudigu la isticmaalo renegotiation baa la samaynaya dib baa loo wada hadlaya waayo cid qurayna wax kala karaysana ma isticmaali karo saaxiibtinimada iyo heshiisyadu waa kala nooc etoobiya saaxiib baynu nahay hase yeeshee waxna waynu wadalayna waxna waynu kalanayna tani waa waxaynu inagu gaarka u lahay waa waxaynu gaarka u lahay su-aasha arrinta ku saabsan oo dhowr jeer laygu soo celceliyey madaxweynuhu saldhigga hadal buu ka yidhi wasiirkuna hadal buu ka yidhi dee waxaan moodayay intii aan idhi macakaftana waaban ku daree inay iskaga filayn waxaan leeyahay saldhig waa ku celinaya saldhigga militari ee magaalada berbera imaaraadka siinay jamhuuriyadda somalilan way kiraysay waa kow waaba qodobaynaya laba kiradaa wax lacaga umaynaan una qaadan mayno saddex mashaariic horumarineed oo waddadaasi lafdhabar u tahay ayaa laynoogu bedelaya waxaan isleeyahay hadalkaasi sumad cad buu leeyahay hadalkii madaxweynuhuna sax buu ahaa madaxweyne muuse bixi uu lahaa waanu kirayn sax buu ahaa hadda culamada fuqahada muslimiintu aaraada markay mararka qaarkood isu ururiyaan waxay idhahdaan way jamciyaan war isma khilaafsanine de wasiirkii maaliyadda malaa lacag baa weydiisano lacag buu ka hadlayay dee intaasaan iyadana kaga bixina wuu xumaaday maxaa sababay masar waa dadaynu walaalnahay xidhiidh fiicanna waa leenahay wax xurgufo horta ina dhex taallaa ma jirto wax xurgufa oo ina dhex taalla ma jirto xidhiidho badan oo soo jireena ayay soomaalidu markay qaranka wada jira ahayd masar lahaayeen maanta inagu somalilan xidhiidh aad u badan oo qoto dheer ma lihi waa ka markhaati kacaya laakiin taa macnaheedu ma aha inaynu colnahay oo xurgufayna dhex yaallaan arrimo aynu ku kala aragti duwannahay way jiraan arrintan ka hadlayay ee dowladda etoobiya tuhuntay ee ah masar inay halkan timaado masar xidhiidh ganacsi baynu xaqu leenahay inaynu wada yeelanno waxbaynu u dhiifin karnaa haddii iminka geel ay naga qaadanayaan waynu u iibgeynaynaa hadday waxaynoo soo iibgeynayaan waa la mid inkastaynu u baahan nahay trade imbalance kale taagba uma hayno ganacsi dhinac u janjeera maanta innagaa u baahan inaynu wax iibino innagaa u baahan
marka laakiin arrimaha qaarkood wardee kuma safaadi karno waxaa ka mid ah dee ciidamo masaaridu leeyihiin iyagoo arrimahan danaynaya xisadina dhex taallo iyo xurgufu etoobiya dee gosheen iyo gurigeenna dee isuguba keeni karno rag xisaday dhex taallo dee waxaynu u ekaanaynaa ya niyo labada giniyaan isgeliye jeeb isugu geeyey walee laba gardaaq show kaama gura xaajo waxaynu u ekaanaynaa ninkii hantooniyo hooyadii ku tiri alla hooye hantooniyo diima badnida jimcahana waxaad tagtaa masaajidka axadaba kaniisadaad tagtaa dee siyaasaddu hadda erayadaas arrimahaasoo dhamay siyaasaddana waxay ku leedahay formulooyin dhaqanka qura kuma laha waa mahadsantii inaad baad mahadsan tahay su-aal dadkuna ku weydiiyeen anaa mid ku yara dhexsanaya raalliga ahaada su-aal dadkuna ku weydiiyeen oo dhinacyo badan yeelanaysaa waa marinka berbera ee etoobiya ku xidhaya layado berbera corridor fikirkiisu wuxuu ahaa waxaa su-aashii hawada ayaa allowday baa layidhi dowlista raalli ahow waan ilaaway kama baxsane arrinta hawadu waa mawduuc aada u adag oo aynu ku kala aragti duwannahay soomaaliya mudanayaal iyo marweyn qarannimaaba ina dhex taalla ya qarannimo harag yar ma ahee waa qarannimaynu isku hayno waa xaq aynu leenahay dal madax bannaan baynu hayn 60kii waynu isku biirnay waynu kala goon waxay leeyihiin naga mid baati 60kii laba daloo madax bannaan oo isku biiray baynu 61kii saraakiishii reer waqooyiga ahayd ee somalilan ka soo jeeday inqilaab bay dhigeen waxay muujinaysay inaanay raalli ku ahayn midowgii 1962 aftidii dastuurka waynu diidnay dadka reer waqooyigii markaa iminka somalilan baynu xilligaa dadka reer waqooyigaa baa layna odhan jiray waynu diidnay afar dhiiggaa ina dhex waynu isdhiig tallaala 19 bulshada reer somalilan beelaheeda iyo gobolladeeda kala duwan madax dhaqameedkeeda siyaasigeedu burcu isugu tegay waxaynu goosanay inaynu qarannimadeennii la soo noqono cid ka maqnayd madashaa ma jirin 5 dastuur baynu samaysanay aftib shacbigeennaabaa loo qaaday 97% ayaa u codeeyey inaynu gaar isu taagno 6 soomaaliya intaas oo sannadood bay shirir dib u heshiisiina waday umarba meel ku shariyeen oo dastuur ku waxay bay samaysanayeen jaartarada iyo heshiisyada mid qura qayb kamanaynaan saxiixin waxba war iska daa wax kale war magacaynu ku heshiinay magacay maanta haystaan maaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaynu ku midoobay maantana waxaa leedahay dowladda federaalka soomaaliya oo maamul goboleed yale structurekaaba kuma jirno arrimaaynu isku haynaa waxaase ina dhex yaal arrimaaynu isku haynaa ayay hawadu ka mid tahay laakiin hawada may haysan jirine waxaa inoo hayn jiray qaramada midoobay xilligii butrus qaali ayaa waxaa la go'aamiyey article resolution layaa 1954 ayaa waxaa lagu go'aamiyey in hawada dalkii burburee soomaaliya qaramada midoobay dhexahayo xarunteedana nairobi laga dhigo ekaaye iyo UNDP-na ay wada maamulaan muddaa laga wada hadlayay in la soo wareejo waanu isku mari weyne heshiiskii istanbul wuxuu ahaa si aan siyaasi ahayn mashruuc farsamo in laga dhigo oo loo maamulo xaruntiisuna somaliland noqoto hargeysa noqoto way ka baxeen waanu isku qabannay waanu isku mari weyne oo hadday nagamay xoog roonaane haddaynu isdillo nagamay xoog roonaadeene dee waa laynoo kala hiiliyeyo hay-adihii gacanta ku haya qaramada midoobay baa u dhiibay qaybtii hordhac ahayd arrimaha adag ee wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ku jiri doona ayay noqon doonaan intaan qarannimada la gaadhin arrimaha guddiga u ah ee laga wada hadli doono ayay ka mid tahay waa godob aynu haysano beesha caalamka qaramada midoobay somalilan haddii godob laga galo oo loo abaalgudi waayo nabadda iyo dimuqraadiyaddii horumarkay samaysay oo tallaabooyinkaa kuwa ka mida la qaado somalilan waxay haysataa kaadhan adag oo ay dhigi karto nabadda iyo wanaagga iyo horumarka ay ku naaloonayso ee ay dunida doonaysa in dhinaca wanaagsan loola shaqayso waxaa dhallinyaradeeda iyo da'yarteedu ku qasbanaanayaan
inay noqdo in la radicalize gareeyo argagixisada ay ku biiraan dee aynu noqono dhaqankii shaarka yar aynu qaadano north kuurdiyadii geeska afrikaba noqono marka arrimahaasi waa arrimaha inuu hor yaalla ma xukuumadda somalilandna ma bixin xukuumadda axmed siinaay iyo tamuuse biixi midna heshiiskaa kuma jirto waa layna xoogay dee waana arrimaha inu baxanayna soo dhacso aad baad madsanta wasiir waxaad doodaadina ku jirtay hore marar badanna loo sheegay in saldhigga military aan lacag laga qaadayn sanadla-a laakiin mashaariic horumareed lagu qabanayo mashruucii horeeyey inuu noqonayo waddada isku xidhaysa berbera iyo wajaale mashruuca berbera corridor waxaa loo yiqiina inuu yahay waddo madax bannaan oo waddadeena kale ka duwan ayaan dhawad waxaa la dhex dhigay inuu noqonayo waddadeena oo la kabkabayo la yaro ballaadhinayo negotiationkaa ku jirteen ma waxaa kula heshiiseen oo dekeda military baseka inoo siiseen in waddadeenu laynoo ballaadhiyo mise waddo madax bannaan bee waayahay garyaqagulada aad buu mahadsan waa su-aal aada u fiican dowladda imaaraadka carabta saldhiggii military aynu siinay waxa ugu miisaanka weyn ugu qiimaha badan ee ummad ahaan aynu macaashnay ee siisanay waa waddada hadday dekadaasi noqoto bilaa waddo 442 milyan EB way gelinaysaa faa'iido male waa ceelaad qoday oo dar looga soo arooraba iyo waddaba aan lahayn sidaasaanu arkayna DB la waddada de inooma dhisay dekadaynu ku heshiin marka waa waxa weeye dowladda imaaraadka waxaanu ku heshiinay in waddo cusub laynoo sameeyo markii farsamadii la galay ee shaqadii la gudagalay waxaa soo baxday in muxuu ahaa waddada hadda la samayn doonaana waxaan u xaqiijinayaa bulshada somaliland inay waddo cusub tahay berbera corridor waddada hadda la dhisi doonaa sida wasiirka gaadiidka cirka iyo muxuu ahaayey uu sheegay cabdilaahi abubakar waa waddo cusub maaha kabka waa saxaya waa waddo cusub laakiin waxaa loo arkay maslaxad in waddada la qaado qaybteeda sare oo dhan laga faa'iidaysto muxuu ahaayey foundationkii hore waddada halkay maraysay waayo meelo fara badan deegaanka u dhexeeya berbera iyo muxuu ahaayey hargeysa badankiisu waa buurale iyo dooxyo waxaa la arkay xilligii da ingiriiskana waa la sameeyey xilliyadii dalkii soomaaliyana waa la sameeyey meelo badan oo loo duwo waddo cusub laga sameeya inaanay jiri karin baa la isku qanciyey farsamo yaqaanadii somaliland iyo imaaraadku waxay isku raaceen in waddo cusub oo meel kale laga sameeya ay dhib badnaanayso sidaa darteed waddadan waddo cusub laga dhigo oo la qaado oo meelaha ay ka daacday dhammaanteedna dib loo dhiso xataa foundationkeeda dee war waa waddo cusub bay noqonaysaa aan saxo aan naaxiyo madaalka cigaar international airports wasiirkii duulistaan ahaa wadhabaha maanta laga sameeye laga duulaa waa dhaba cusub haddana wuxuu ku qotomaa foundationkii hore ee ingiriisku inoo sameeyey 1958 foundationkii waxaa la qaaday leeyaradii hore oo dhan leeyarkii koowaad iyo labaad iyo saddexaad foundationkii baa loo tegay dhagixii baa dib loo habeeyey waar waddada meeshay maraysaa laga faa'iideynayaa foundationkana wixii ka nool waa laga faa'iideynayaa markaa waa waddo cusub sidaasaanu ku heshiinay waana sidii wasiirku sheegay okay maya haddii la istaago waxba ku bixi maayo sheekhan khamiiska sita markii golaha aad ka hor jeedinaysay wakiilada waxaad sheegtay in dekadda berbera innaga iyo imaaraadku aynu ku heshiinay oo aynu labadeenu nahay somaliland iyo maaragtay shirkadda markiiba waxaa soo gashay etoobiya oo in yar ka bacdi waxay ku noqotay mid maaragtay heshiisii ka tirsan waxaanaad sheegtay heshiiska inuu aynu galnay labadeenu inaynu nahay midka hadduu doono in qof kale cid kale soo gasho in qaybta kale lasoo hormariyo oo ay maaragtay heshiiska saa ku wadaagaan laakiin maxay tahay in iyadoo aan baarlamaankii lasoo hordhigin shacabka loo sheegin in la yidhaahdo uun 17% waxa iska leh Ethiopia mahadsantahay waxaad siinaysaa xagga dambe baan u tegi doonaa halkan iga muuqda
markii aad ka hadlaysay mudane geeska africa ilaa uganda ilaa burundi meelahaasaad gaadhsiisay horta dalalkaas milaawaad halmaantee bariga africa la dhahaa taas waa cambaarayn qodob kale meesha yaallaa wuxuu yahay waxaa jira wax la dhaho legal personality marka la akriyo international contract lawga legal personality waxay tahay dowlad waliba sida shakhsigu heshiis u galaabay shakhsigu ayay heshiis u gashaa marka legal personality dal la ictiraafsan yahay oo international systemka ku jira ayaa heshiis cid la geli karaa marka waxa weeye aan waddo kale laga saarayn for example anu haddii dekada berberi uu macnihii environmental hazard oo kale dhacdo arbitrationka haddaan somaliland dal ahaan loo aqoonsanayn sidee baynu hadhowta u kala bixi karnaa for example heshiiska dekada dooraala wuu fashilmay ilaa london baa imika jabuuti waddan la ictiraafsan yahay ilaa london baa murankii maxkamad ku kala saaray waa maadsanta criticismka kale waad maadsantahay saaxib waa si fiican baa loo fahmay su-aashaada hablaha raallaha aanaysan wiilasha inantaad istaagtay ha sideeta wada qabsiga iraan waa maxay sababtaynu uga cararaynaa mar haddii dowladda waxtarkeeda liito inaynu tishaabino iraan هذا سيف على ما مغري وهو قبسي إيران وما حي سبب تاينو عررة إنه مي هدي دولة عرفت وحتر كيدو ليتو ميانا هاي إنه تشابهنا إيران إن أنت تنبه حاجة تنبه شوتنا ولي baraha bulshada markii lagu baahiyay barkulan kanaan hadda joogno waxa ka soo baxay comment fara badan oo adiga aad lagu dhaliilay marka ma oran karnaa saaxadda siyaasadda inaad mar kale ku soo noqoto kuma haboona حقا كعلى ويل كان كعلى أنا محمد عبد القادر وزير السؤال بويدينيا Soomaaliya filcilinta ka bixisay heshiiska degada Berbera oo filcilin ay kaga soo horjeedo saamaynta hadaba uu heshiiskaasi ku yeelan karo Soomaaliya wuxuu yahay maadaama ay ka filcilisay iyo aqoonsiga Somaliland halkee uu ka geli karaa heshiiska degada Berbera waa mahadsantahay wasiirka su'aashan doonayna weydiiyo waxa weeyaan wasiirku wuxuu noo sheegay in heshiiskan loo galay dan qaran oo xukuumaddii markaa joogtay ay mooday inay dan ugu jirto qarankan dad kale waxay qabaan in xukuumaddaasi ay u gashay keliya xaquuqalin oo lacag yaro caddaan ah oo kaasha marka ay ku qaadatay si taas madowga uga baxo wasiir ma jirtaa xeeldheeryaal siyaasadeed ama dhaqaale ama ammaan oo dalkan u dhashay oo madax bannaan xukuumaddiina iyo xisbigiina ka madax bannaan oo aad tale ka siiseen markaad go'aankaada gaadhayseen waa bahadsanta waxaan ku soo noqonaynaa wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشا هشيسكا ولا وكيلة نحركي لقى عن سحية هشيسكي لقى عن سحية وحود حي شك سومالي لان يضل كإمارات كعربتا قارهان شركة دي بي ويل إثيوبيا كومتشرين siday u soo gashay maxay sharciyadda yeelanaysaa noqonaysaa su-aal micnaheedu nuxurkeedu sidaa yahay un baan u fahmay waa dhab heshiiskii golaha wakiilada nuxurkii heshiiskii aanu horgeynay waxa uu ahaa inaynu maalgashigaasi u dhexeeyo somalilan iyo shirkadda d b w tuugna ma xado saasay ahayd waxaa soo kordhay heshiiska laftiisase waxaa ku qoran in saamiyada aynu kala lahayn ee 65 iyo 35 ay xaq u leedahay dhinac waliba inuu iibiyo oo cid kale ku wareejiyo muddo iyadoo muddo ku xidhnayd muddo intaa la eg laakiin bishuruud dhinaca kale inuu ay ogolaado ay tahay DB wel sheerkeeda wax iibinayso way Somaliland ay ogolaataa haday Somaliland sheerkeeda wax iibinayso third party imanayana way Somaliland ogolaataa heshiisku wuu ogolaanay nuxurka heshiiska halkaa ka fasaxay kaliya waxa muddada lagu xidhay ayaa wax ka bedel u baahan heshiiskaas
waxaan u aragnay annaga iyo shirkadda DP World in dalka Ethiopia saami laga siiyo waxaan u aragnay maslaxad ganacsi iyo mid siyaasadeed danii aan ka warramayay ee macaawadana sharxayay ayay ka mid ahayd kaan aynu hayno inaynu isticmaalo ay tahay baanu aragnaa anagu oo wax weyn inoo jaray dekedeenna in laga ganacsado Ethiopia isticmaashay saami weyn ku yaal ila waxba bay ku leedahay mid waxay naga xumaynaysay umaanu arkayn annaga iyo dadkii kale aan la tashanay toona qodobkaas wax ka beddelkiisa in dib loo mariyo la xalaaleeyo uunba qabiya dib loo xalaaleeyo heshiiskuna wuu sheegay inaynu iibin karo kaa intaasaan kaga baxaya hadalkii ninkii dhallinyarada halkaa ka hadlayay muxuu ahaa waa furan tahay dhaliisha iyo duurxulku intuba siyaasina waabanu ahayba oo haddii aanan ku soo talagelin muxuu ahaayey masraxa siyaasa ninku haddaanu ku talagelin maag iyo siyaasad iyo wax walba iyo dhaliil masraxa siyaasadda maba yimaado laakiin meelo badan bay mala ahayd inaad iga qabato qodobkaada igu soo dacalabtay dhaliil iguma ahayna aqoon igu filan oo ballaadhan baan geeska afrika iyo u leeyahay meesha la yidhaahdo bariga afrika ma odhan ruwaan ogaadiga raalli ahaadaan ma odhan ruwaandu waxay ka mid tahay geeska afrika baan kuugu celinaya ruwaandu waxay ka mid tahay bariga afrika ayay ka mid tahay laakiin uganda waxay ka mid tahay the great horn of africa sagaalkii wadan ee aan sheegay bay ka mid tahay markaa waxay ahayd meel kaloo gol jilicii ah oo aan ka jilicsanayn inaad iga weerarto muxuu ahaa su-aashaadii markaan u imaado musiiba hadday inagu dhacdo dee heshiiskaynu gashay baa sheegaya concession agreementka aynu gallay ayaa sheegaya waxaan aqoon-yahanada somalilan iyo bulshada somalilan u sheegaya waxaynu ahayn dalkii ugu heshiiska adkaa ugu gorgortanka adkaa dalka imaaraadka carabta shirkadda DP World waad baari kartaa si madax bannaan baad u baari kartaa 9 bilood oo cilala ka dhashay baanu isor fadhinay waxay arkeen inaynu nahay annaguna canaanka yaabreen ma doojo dhinac bay nagaga jirtay waxay arkeen heshiisku inuu nagu cusub yahay oonan hore dhiiran u gelin annagu farsamo iyo khubaro farsamo yaqaan ama wasiirro baanu hayno siyaasiyiin baanu nahay anigii saaxiibadaydii kale laakiin khubaraa nala talinaysay waxaa nala talinayay labada shirkadood ee adduunka shirkadaha ugu miisaanka weyn legal muxuu ahaayey legalka dhinaca legalka waxaa nagala talinayay Siemens shirkad ingiriisa oo afarka shirkadood ee dunida ugu caansan dhinaca la talinta sharciga dhinaca financial expertkana waxaa nala talinayay anasanayaan oo iyagoo shirkadaha dunida ugu caansan ka mid oo xoolihii ummadda aanu ku bixinay in ummadda aan la dhicin nala khiyaanayn nala baqsin waxa aad ka hadlay soo dhamin way ku jiraan qodobadaas imaaraadku haddaanu ogeyn in haddaynu isqabanno warada dekedda iyo dalka way nagaadeen waa subaxaynu dariirino waxayna xidhayaan heshiis laakiin riski takerku innaga ma ahayne waxay hayeen dalka imaaraadka waa ku bogaadinaya dowladda imaaraadku shirkadda DP World ee heshiiskaa ku dhiiratay shirkado kale aynu damacnay inaynu heshiisya la galno shirkad shiinaa baa ka mid a oo aynu isnii soo jiida gaaska laga helay dalka Ethiopia kilka shanaad oo dowladda Ethiopia la waday ra'iisul wasaare Mele Zanaawi la waday oo u dhaweyd berbera halka maanta laga dhoofinayo Eritrea iyo Djibouti la kala doonayo 470 kilomitir u jirta waxa seejiyey way baqeen koona way dhiiradeen inuu abaal hayno bogaadinaynu dee u baahana taa intaasaan ka odhan lahaa arrintaa ah maxaynu u tijaabin weynay Iiraan ninkaad kabihiisa ka xiran kabahaaga ka toronayso kuwiisa beel leega kuwiisa ayaa leega waa leega Iiraan siyaasadda markaad go'aan qaadanayso ama nolosha ama xataa qoyska ama qofku
markuu go-aan noloshiisa saamayn kule qaadanayo mudanayaal iyo marwooyin wuxuu eegaa mafaasid wa masaalix go-aankaa khasaaraa ka imanaya iyo faa'iidadu ka helayo afka kale markaan ku sheego pros and cons yacni labada dhinacba u eegaa haddaad iska qaadato go-aan adigoo aan risk analysis samayn khatartiisuu leeyahy marka waxaan leeyahay de risk analysiska ayaynu si wacan ugu garaynaa faa'iidaba ka heli mayno badan wax badanba ka heli mayno bale waxaynu ka helaynaa dhibaatooyin aad u badan oo kale ayaynu ka helayna dhibaatada aynu ka helayno heshiiskeeda ayaa ka badan faa'iidadaynu ka helayno dee sababtaasaanu option aanu ahayn ruushka ka mid ah dee ruushkaaba ka wanaagsan iyaga waa dal weynoo xoog leh quwadaha adduunka leh ka mid a waa super powerkii labaada dunida dhaqaaluuba maanta helay hadda kaadhkiisu saasuu baaladaymoonaya meeluu doondoonaya dee waxaa loo dhigi kari weyne geopoliticska waddankaad eegaysa saaxiibaynu lahayn dhowr iyo 20 sano rag cidla iska socday maynaan hayn ingiriis maraykan midowda yurub mashaariic horumarineed la siiya aynu isku dhownahay weli aynaan coloobin weli aynaan kala fogaan dee kaadharkaa waxaa la dhigaa markaad quus noqoto in naflacaari noqoto baa la dhigaa haddaad si qaboono hore jookarka markaad turubka ciyaarayso aad afarriye ka ku disho waxa weeye shaxguur baa tahay marka taana saasaan leeyahay waxa aan arrinta gabadh fariido halkaa su-aal iga weydiisay waxaan tiri markii arrintan lagu soo casuubay baraha bulshada qaylo badan baa ka dhacday taasi miyaanay muujinayn sumcadda dadka ku dhex leedahay maxaa siyaasadda waxaan leeyahay waa kugu bogaadinayaa dhiiranaanta waxsaan leeyahay hadda qaylada baraha bulshada anna waan la socdaa nin xoog lama yihi baraha bulshada iyo bulshada somalilan ima wada dhaliilayna way qaybsanay in badan oo i ammaanaysa in dhaliilaysaba way nahay taasi waxay muujinaysaa dee siyaasi saamayn la inaan ahay ayay muujinaysaa haddaanan saamayn lahayn dee sidaa umay dhacdeen haddii bulshada iyo wada caydoo dhinac iga wada safato dee waa gar war siyaasadda ka bax markaa dee hay caddaato waxaan qabaa inaan bulshada iyo qarankan u soo shaqeeyey khibrad iyo badan iyo waa aragnimo leh laakiin maanta dee xilba ma haye wasiirna ma yihi xil kalema odaygaa cidlada fadhiya ee nasanaya baan haye maxaad iminka iigu diganaysaa taana intaasaan iyadana inantaale mashaariicdan aynu wadno saamayn intee leeg bay soomaaliya ku leedahay dee waxa ay ku leedahay somalilandna saamayn togan bay ku leedahay iyana waxay ku leedahay waxay ka qaylinayaan de iyaduna waxay ku leedahay waxay ka qaylinayaan siyaasadda waa la uriyaa inaynu xadhigga goosanno madax bannaanano dad noqonay bay garanayaan waxay garanayaan berri in ganacsatadooda muqdisho iyo kismaayo joogtaa hargeysa iyo berberiyo wajaale ay ka ganacsan doonaan inay noqon doono qolo goobtooda camiran tahay oo luqunta la baxday bay garanayaan marka dee inana waynu isdareen ognaa waynu dareen ognaa iyana way dareen horta sheekha safaariga sita dhow jir baan ka boodayey dabadeedna waan idin iman doonaa iguna yaro dhaqsada waqtigii wuu soo siyaasadda ilaa intii waddanka lagu soo noqday anagu xornimada ka qaadanay Soomaaliya wasiiradeena maanta inta u badan waxay u shaqeeyeen dawladdii siirayo oo la oran karo waa intii ay waddanku indhaha la baxay uu dibadaha uu ka iibgeynayay aqoonsigeeda ee ugu caday ma la oran karaa wasiiradii dawladdii siirayo la soo shaqeeyay haddii ay wax ku og yihiin waddankeena inay aqoonsi u soo socdo maxay Soomaaliya ka dooneen inay u soo qordheen u shaqo uga doontay Soomaaliya haddii wax ku og yihiin aqoonsi Soomaaliland soo socdo السلام عليكم بعد السلام مركو راد بنو السلام يا دمان مرتشر تالكم فديدا marka labaad su'aashan weydiinaya waxay tahay horta waxa tahay nin siyaasi aad u sareeya ah aanan aaminsanahay dad badan oo aan ka mid ahay inaad tahay qof wax codkar leh siyaasadana meel sare ka gaari kara waxaan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka inaad noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba haddii ay dawladda imika joogtaa ay ku soo bandhigto xil sare
ma ka aqbali lahayd وزيرنا ارتوتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ويديني وزيرك وحويان markaad eegto heshiiska DP World iyo dekada berbera laga yimaado oo aan u arkayo runtii heshiis indhaha inoo furay ma jira heshiisyo kale oo sida China iyo Ruushka oo ama processka ku jiray oo waqtigii naga soo gaaray oo jiray ma jira sidoo kale ما سؤال كلمة وأقول هاليجا هاليجا وقتك أسيدا وقتك أسيدا وقتك heshiiska DP World aynu la galay ballaarinta dekada berbera waxaa dhaba inuu saameyn weyn ku yeeshay ku yeelan doono horumarkeena mustaqbalka markuu dhammaado wuxuu kale oo ku yeeshay saameyn aynu aragnay siyaasaddii saddexdii sannadood intaynu heshiiskaa gallay ee dhaqdhaqaajinay wax aynu turubka kaadhadhkaa dhignay saddexdii sano Somaliland intii wax laga qoray dunidu intay wax ka qortay iyo intii ka horreysay Somaliland waxa badan saddexdii sannadood intii laga qoray dad aqoon-yahana baa tihiin oo nin dhalinyaro halkaa fadhiya wuxuu yidhi sidii dad aqoon-yahana noola hadal dee sidii la imaanka hadda idinlamaan hadalin sidii aqoon-yahankaynu caawa wada hadlayni waxaan yacni aada og tihiin xogaha macahaddada dunidu ee aqoonta ay ka qoreen ee saadaaliyeen marka waxaan leeyahay arrintaas waxtar bay innaga inoo ahay ruushka dee mar hore aan ka jawaabayo marka aad deked ama saldhig cid siinayso waaba anigii idiin sheegayey hadday Itoobiyaanku imaaraadka may diidaneen markii ay casab u qalab qaateen April 2015kii ergay u direen dowladda Itoobiya waddanka imaaraadka carabta waa April 2015kii waxay ku yidhaahdeen war waxaanaad waa markay asab degeen war haddaad dekad dhisaysaan ka dhiseen berbera Somaliland bay ku yidhi halkaasaan wax kala soo deginaa marka dad saaxiiba iyo mantiqad saaxiiba yaa meel lagu ururiyaa waataan hore intaa uga jawaabay su-aasha ahayd nin dhalinyari halkaa ka iga weydiiyo ahayd wasiiradii xukuumaddii Siinayo muxuu ahaa hadday heshiisyadan iyo waxaanaad ka sheekaynayso iyo dalkan badan ku og yihiin maxay xamar u tageen waxaan jawaabteedu dawa iska koobanta dembiga wadar looma galee qof baa muwaadiniinta u gala qof xagga sharciga iyo xagga ilaahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaahay wuxuu yidhi qof waliba waxay kasbataa bay leedahay dee taloos golo wasiireed iyo siyaasiyiinteedii golaha ku jiray wax lagu cambaarayn karo intayadii kale aan tegin dee ma aha waa ragun iyagu dee tegay iyagaa lagala xisaabtamaya mana muujinayso quusdaradeena dee waxay naga tegeen waaba saddex nine waradayntayadii ka badnaydba waa joognaa qaar beera fashi iyo qaar iska xafiisyo furta iyo muxuu ahaaye ninku inuu shaqooyin badan tusaalayo fara badan baaba ka soo baxaybe dee taas example naloo soo qaato ma noqon karo dowladda hadday madaxweynuhu hadduu xil kale kuu soo bandhigo ma yeelaysaa waxaan iyadana kaga jawaabayaa 9 sannadood baan wasiir ahaa qarankana waxaan aaminsanahay inaan wax badan u soo qabtay odhan maayo weligay waxba ma khaldin odhan maayo laakiin qaranka daacadnimaa lagu shaqaynay iyo dadaal madaxweynuhu markuu dowladda dhisayey wuxuu ahaa guddoomiyihii xisbiga kulmiye waxaanu isku xisbi baanu ahay raggii aada ugu ololeeyey dhisayey baan ahaa markii uu dowladda qalinka u qaaday waxaan u sheegay aniga iyo midhadh wasiiroo kaleba
inaanan anigu xil ka doonin baan u sheegay waan u baahanahay waxaan arkay inaan u baahanahay inaan iska nasto reerkayga iyo qoyskayga urursado oo iga dayacmay muddada aan aqoontayda kordhiyo ummadda si kale ugu faa'iideeyo markaa waxaa ku jira hawl aan yarayn baan ku dhaydo hadda hayaa oo fara badan markaa hadda xil kale diyaaru ma yihiin kaa intaasaan ka odhan lahaa heshiisyo kale oo aad gacanta lagu hayay ma jiraan maya laakiin maynaan qorshaliyin xukuumadda iyadiina waxaanu haynay qorshayaal waa kuwa madaxweyne xukuumadda madaxweyne muuse biixina ma qorsho la'a markaa maanta maalinba awr baa dhaamiyee madaxweynaha iyo tiimkiisa ayaynu qorshayaashii ka sugaynaa waxaa innaga inagu waajibaa inaynu la shaqayno oo la garab galno fariinta ugu dambaysa miyay dhammaadeen su-aalihii mise way socdaan waayo waxaan ogahay in qof kastaa su-aal muhiima hayo dad baa taagan aniga oo laygu yidhi dadka xidhiidhi warwar badan baa iga haya qof walba su-aal